badan ma ana arkin ma fahantin xala marka arkay sawirradooda wiilkayga oo ila joogo igu soo dhacday madaxweyne waa noo istaag sida noogu istaag banaanbaxan oo waalidiin caruurtooda ay tababar u jiraan dalka Eritrea ay ku dhigeen iskuuska lambar 4 ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid mahadcelin iyo taageero loogu muujinayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay xirooyinka ku booqday askarta oo markii ugu horeysay muuqooda la arkay waalidiinta oo wajiyadooda laga dheehan karay farxad ay ka qaadeen in ay arkaan muuqaalka caruurtooda ayaa tilmaamay in markii hore ay ka rajo dhigeen nolol iyo geeriba madaxweynaha waxaan ka codsanaa caruurteena inuu keeno oo hadda waan ku aragnay sawir inuu ayagoo taas u socdo oo noo keeno oo aan aragno ku faraxno banaanbaxay badan halka ku dhigteen banaanbaxan muxuu ugu duwan yahay aad iyo aad kii hore wax badan oo ka duwan yahay wax badan rajaba ma lahayn awal laakiin hadda rajo weyn aan leenahay waxaan maanta meeshaan u nimid oo isugu keenay farxad waxaan muruga la taagnaanaba maanta farxadaan la taaganahay ilaahay idankiis murugadii waa naga baaday qarankayaga cusub baa murugadii naga faa'iiday waxaa ku mahadsan Allah subxaanahu wa ta'aala ka sakow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisa ilaahay waxaan ka baryaa waxa jeceshahay inuu ilaahay ku siiyo sida noogu istaagto noogu kaan aragtida aan tusto nooga rumay waxaan ka codsanaynaa ilmahan inaan noo keento aan ka codsanaynaa waa noo istaagto madaxaada Allah raajiyo farxad badan baan dareennay farxadaas ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa saan u faraxnay ilaahay nooga sii farxiyo iyo mid ka fiican qalbigeennii madaxweyne waad qaboojisay ilmaheennina waa farxisay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbiga ku qaboojiyo farxadda aan maanta haysanno ilmaheennina ay haystaan waligeed ma arkin inaana waligeed arkin oo maleeyo fiina abadan ilaa aan dhashay hadda ka jawaabista cabashada waalidiinta oo muddo soo taagneed ayay uga mahadceliyeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu 3 sano kadib ka jawaabo dareenka waalidiinta 3 sano iyo barbaan waxaan taagnaa qoraxda iyo ciridda waligaan waxna la hadlana ma naarag maanta marka ilmaheena godka ka soo bixisay waan kugu faraxnay madaxweyne waxaan ka codsanaynaa sida nooga farxisay ilmaheena oo godka uga soo saartay inay soo godka dib ugu laaban ilin farxadeeda naga socod dhowr jeer halka ku banaanbaxdeen maanta maxay ugu duwan tahay maanta waxay ugu duwan tahay wali maanan arag madaxweyne inta taga ilmahayaga nooga soo warbaxsha madaxweynaha koor maanan arag waxaan ku jiifnaa ilmi in la soo wado waxaan ku jiifnaa aragooda iyo imaashooda inuu isku xigo waxaan ku jiifnaa in madaxweynuhu noogu maqan yahay wallaahi xala iyo habeenkii Xasan Sheekh Maxamuud la dooranayay farxaddu isku mid ay ahayd wallaahi aniga xaggayga waa faraxsanahay cimrigiis jiryaw caynaan ka hay magacayga Caasha Cabdi Cilmi waxaan leeyahay madaxweyne Allah kula garab galo kaaba xigna ilmaha waa askartii qaranka waa ilmihii qaranka annagu waa dhalnay kaliya hooyanimaan u daqnanayna adna madaxweyne baa u daqnanaysa Soomaaliya oo dhan baa iska leh waana mahadsantiin TV-ga qarankuna waa mahadsan waxaan rabnaa marka waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa tagitaanka uu tagay madaxweynahayna waa ku mahadsan yahay Allah mahadle waxaan leenahay mudana madaxweyne dadaalka aad suubisay oo dheeriga ah waxaan ka codsanaynaa inaad dalkooda iyo dadkooda aad dib ugu soo celiso waxaan ka codsanaynaa 100% saad ilmaheena ugu tagtay oo farxad noo tustay oo maxay tahay qalbigeena aad uga farxisay horta marka koowaad Allah kaaga farxiyo marka labaad madaxweyne ilmaheeni inta 3 sano indhaheena ma nasaarin ilmaheeni waxaan noogala waday oo inooga tageen in shaqo beena loo abuuray oo la yiri waa shaqaysanaysiin oo qadar noogala waday oo la yiraahdo dawladda qadar ciyaartooyda qadar ay kubadda koleyga ayaa Olombikada ay ilaalinayso soo baxan ayaa ka duwan kuwa halkan bilooyinka waalidiintan ay ku dhigi jireen maadaama uu yahay mid farxadeed markii horena uu ahaa mid ay cabashooyin ku muujinayeen waalidiinta halkan ku sugan ee banaanbaxa nabadeed dhigaya maanta Said Umar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed isgoyska lambar 4 magaalada Muqdisho